habeen wanaagsan saqdhaxa wanaagsan soo dhawaada saaxiibayaal waa saaxiibkeen Cabdiqaadir Boos welcome back odagorta magaraad buu egyahay ma iimaan buu egyahay ma ugaas buu egyahay waaye intaas idin qusasee caawa shir cajiib ah bay mucaaradka isugu yeereen kaalayoy guriga Sheekh Shariif la dhoobay update kaasa waxa idin kaga hayaa maxaa ka cusub doorasho qof iyo cod update baa idin kaga hayaa xaajadii maad salaad iyo sambalosha halkee maraysaa ayadana update baa idin kaga hayaa he soo dhawaada caawa jiif ma jira xamar waxa waaye qof walba dhagta u taagan intiina update ka ah intaanan ogeynna wasgaarsiin doontaan marka waxaan rabaa intaan barnaamijka daahfurin inta hadda daawanay saaxiibada qaaliga ah bal u share gareeya kuwa kale ee barnaamijkan u ooman ama u baahan inay wax ka ogaadaan caawa mucaaradka habeenkooda wey hadda ogtiin hadii kale sida u socdaan aniga xamaraan joogaa meelaan ka fogeyn guriga shirka ka socda waa ka yimid waxa la dabacsan yahay waxa la rabo waxaan rabaa in ummadda Soomaaliyeed bal aan ka iibino horta dadkan mucaaradka say wax u rabaan dawladdu say wax u rabtaa dalka caawa ku maraya dagaha taagan kulli ummadda Soomaaliyeed wax kalena ma mucaaradka maxay soo wadaan macna waaya su'aal kala jirta mucaaradka awood ma leeyihiin dhaqaale ma haystaan doorashada ma fogay karaan ma soo dhaweey karaan maxay isbedel dawladdu ku sameey kartaa shirkooda caawa ayaa rabo qaybta koowaad barnaamijka inaan ka dhigo qaybta labaadna doorasho qof iyo cod halkay marayso dadna waa diidan yihiin ummad badanna waa rabaan update kaasna wax ka siiyaan rabaan baashi xawaale oo taagan sanbalol shabacow mahad miniin la keena bacawga dagaalkan anaga waa ka baxeena arintaas waxa Allah yaa kaaga fataxo taasna waa idinka qancinaya soo dhawaada mar kale وصاحبكين عبد القادر بوس وأضيف همسن علشان مقاهدة إن داونا عيان ذاتك الأفكار دون معناه ذاتك الدون وقف كستن أباهية إن عرفتي السياسة اللي قنعية وفهمت الصومة أنا الدولة اللي بدأ أسكت هاجر مدحوينها أسكت هاجر لكن كوا إجا صور جيدو أفكار السياسة أنا أقابل ديدن أيجن حكتو ماشان كوي مايان ومرة يتيري بس هالشيء يا معناه تسوى لوا غير كبير اسمي ده من توه واي waxaan ka codsaa inta daawanayso barnaamijka inay share iyo love iyo like ku caawiyaan macna intaas ka codsanaa maadaama saq dhaxayd oo la maqaya de kaalintaada qaado adiga haddan ka iimaan shirki mucaaradkan ka nimid aniga hadda marka kuwa maqan kaalintooda gudo kuwa iimaan doonana waay barnaamijkayga waa daafuraya soo dhawaada Soomaaliya saad socoteen sanadkii ugu dambeeyay waxa lagu jira dawladda Soomaaliya iyo taaranka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud xaaladda hadda waxay maraysaa marka bariga dhexe maraysaa hadda la socotaan horta way ma soconay marka mucaarad bay waa qodob saamilay siyaasadda la baxay macnaha waxa jira ama loo yaqaanaba way la baxayaan waa loo yaqaanaba waxaa jira mucaarad kale oo maamul goboleedyaha sida Saciid Deni iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe dawladda xisbiga ku dhawaaqday maamulada intooda kalena qayb badan oo kamidana dawladda ku biireen marka marxaladda hadda meel cusub karkaray maraysaa dawladdii hore farmaajo iyo tan waxay ku kala duwan yihiin farmaajo shib uu yirto afartiisa sano markuu dhameystay uu yiri qof iyo cod la aadaa markaas abuuq bilowday dawladda xasan waxay kaga duwan tahay marka madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumaddiisii oo waqtigooda aan la gaarinba baabuuq la bilaabo marka badbaado qarna la sameeyay iyo xabad ma la ridaa iyo qof iyo cod ma soconaysa iyo sheekada sarbayna kaga dhacay way madaxweynaha Soomaaliya saad ogtiin maalintii la doortay ayuu bilaabay inuu yeero rag asaga ka afkaar duwan ee mucaaradka uu yiri kaalaya dalka inta u jiheynaa sida hore kuma noqon karno halkee aadna dhabahay qaadna
أنا waxay siinay madaxweynaha in laga arkaba wallahi markaan qiimeeyay xaaladdaanba madaxweynaha iska jilcan asagoo 3 bil jooga 4 bil meeqeed ma 5 bil ee buu u wacay waana qayb kamid ah dimuqraadiyadda oo beesha caalamka xataa ay leeyihiin laan dheeraata wariyaa kugu daalinay madaxweynihii iyo laba maamul goboleed waa isdaayeen inta kalena madaxweynihii iyo xisbigiisa galeen caawa maxaa soconaya marka su'aashaas waa nimayo ana horta wax qarin maayo siyaasadana diin maaha qabiilna maaha waa fikir waay madaxweynaha wuxuu xal markasta u arkayay nimankan NCC la dhaho golaha wada tashiga qaranka maadaama ay sharciyad haystaan lafta gareen cali guudlaawe ninka la yiraahdo qorqor deni axmed madoobe iyo gudoomiyaha gobolka banaadir iyo matalaadaha kala maqanba in la heshiiyo oo meel la isugu yimaado ilaa saamilay siyaasadda ma qanci karo mid kasta kursiga rabaa saamilayda siyaasadda mar walba waa diidanayeen in denina kursiga la soo fadhiisiyo miiska wada hadalka axmed madoobena joogo hadday maqayin oo ku faraxsan yihiin cali guudlaawe qorqor la tuuro macnaha xasan sheekh iyo saamilayda inay hadlaan caalamkana ma ogola mucaarad dawlad ku qasbaya sida u socoleed macnaha laakiin dawladda dhexdeeda waa inay heshiin karaan sheekh shariif waxaa la yidhi laandheeraa tahay dee wax qarin baynu moogtahay nin abgaal baa tahay xasan adaa abgaal haddii maanta teeno la tago waaba haddii la tagee nin abgaala oo hartay abgaalaa tahay powerful baa tahay yaa ani powerfulkaas waa fahmi la abgaal ka adag waa sheekada soomaali ku sheegaysata moogtahay abgaal ka adag ma jiro anaa runta ku sheegaya hawiye ka adagna ma jiro qabiil ka adagna ma jiro wallahi ma jiro waxa la isku dulmay waa dawladnimada hadii wax adag iyo qoliyaha dawladda ka haysan adiga shariif mucaaradki iyo rag kale oo dalay ah iyo dawlad imaaraadka la yiraahdo ugu horeyso waxaa la yiraahdaa xasan sheekh ala dumi karo inta baasha ma ka sheegayna moogta Soomaalidu baan daawanaysa boqolaal kun oo qof aan daawan doonto siyaasadda sideeda munaafaqad way ku jirtaa laakiin markasta ma soconayso boogay shariif adeerkay rayla qaan allah siiye waxaa la yidhi xasan wax u soco kara male haddaa adiga waagi farmaajan adaa isdhaafsiiyey kursiga xasan baa banaanka soo istaagay adaa laandheero ah adigana hogaami beesaha ku qaata dooro qadiyad xumaha ku qaato siyaasad xumaha ku qaato ila ninka uu haysto waa in adeerkiis waa in adeerkii inkastoo siyaasadda aysan ilma adeer gelin haddana waa nin shisheeye iyo sokeeyaba ay ka dhaadhiciyeen abgaal kale ku dil wax la yidhahda kuwa badan oo tabar hayna waa ku daba safteen waayo yaa war idinku daalinay caawa guriga muqdisho uu ka degan yahay sheekh shariif baa la isugu yimi haddaa idin ka warrama saaca sunnada xasan cali khayre kaalay cabdiraxmaan cabdishakuur kaalay saacidow kaalay hebelow kaalay waay meeshaan siyaasad qaldan waxaa ku jirta siyaasad dhan daros ah deni iyo axmed madow maxay u maqan yihiin waa idin fahamsiinayaan shariif horta inuu siyaasadda waa leesgaadaa waa jar shariif inuu kaarka cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xasan khayre iyo adamaba u arkay inuu ka marsan karee wuxuu aaminsan yahay xasan khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo adiga liidar u noqo madaxweyne horaa soo noqotay iyo intii ku daba feelsanba gurigiisoo caawa ugu yeeray dawladda falcelin ma ka bixisay mucaaradka ma shiri karaan cid shii ku dhacda ma jirto cid xabad ku ridda ma jirto cid intee ku shiraayeen dhahda ma jirto cid inay wax bedeli karaan aaminsan ma jirto wadaba dhacad dawladda waxay ka aaminsan tahay wallah niman bunaysanaayo oo guriga shariif joogo oo agoonyar marti u ah oo cambuuladoodu cunaayo inay yihiin horta la aaminsan yahay ilaa niman sharciyad haysta maaha maxay taagan yihiin marka bal si fiican Soomaaliya ii dhageysta wuxuu adduun iga qora waxay taagan yihiin waa in la xabadeeyo habeen kasta guriga ku shiraan guriga cabdiraxmaan cabdishakuur tagayaan soore ka soo cunayaan waa baxayaan shariif u tagay cambuule ka soo cunayaan shariif sakiina mar u wacay wuxuu ugu sheekeynaa beerihii baayi bakool niman iska qaxweeyo oo iska baashaalo oo jasiira dadka ragga fadhiya waxba ka duwaneen bay dawladda horta u yihiin mucaarad xisbi leh oo diiwaan gashan ma jiro waayo yaa marka maxay taagan yihiin war dawladda markaan xabad ha soo rid dawladdan xasan sheekhne tii farmaajo ma aha qof kaa afkaar duwan xabad ku rid
معناها حبضي تانجي كرد مقب تعيد دولة بقى سؤال ناس قبيل هبل أكبقينا هبل أكبقينا أنا معها دولة أمس واحد هذا هل كرت الشمال إذا عاد الشمال لو هذا شاء راديو كولومبيا واحد لا راديو بي بي سي نواس كهذا شاء يوتيوب ولا شيء كرا هذا كله حكم الدول الدين وأنا سيد عالم كأمسيها نما كانوا وحيد تاجين نما كانوا وحيد تاجين وحلي رابد بعد قرنا سمع سنينا أبديت كعواد سينا مكته بدبادة قرنا لسوء أسبوعي سينا هاي وربدبادة قرنا وحي إهت كار مر دريم أو لغوري هذا واحد رجنا واحد أقول ليتو نين رجع أو دريم أمر ريو وكوري هذا أنا مركل إنه ريادي الرباب إسلا ريادي مر عرفتين هي مع كوريوني يعني قاب خوف كست وحبا لا معي هي مع كوريوني هبينك كل وراديني هرددنا واويس الهيدن ميس ورددنا ميس ريادنا ما كو سو لابس habarteedi ka tawan jalisay horta waxba idin sheegayaa aan kaftame badbaado qaran nin mareexana lagu dulmiyo horta ama lagu dulmiyo ama xoog wax looga qaato asagana sharciiyada waa ka booday waqtigiisa waa dhameystay qof iyo cod been in la iska dhaxsho diinta qabto qofkaas ama waa isla ha noqdo ama mareexan ha noqdo hadii wixii lagu heshiiya ka boodo waa qasab waa lagu taabanaa shaqadana aadan wadintay haddaad guri ku heshiiso qof inuu injineer guri ku dhiso hadduu qabyaya guriga hadduu ku yiraahdo hal sano igu daro ama 2 sano waa loogu darayaa laakiin guriga hadduu san bilaabin karo oo ku yiraahdo 3 sano ama 2 sano lagu daro laga tagaalada abaha kuus way adina markuu ay taagay badbaado qaran wax la yiraahdo sameeyna madaxweyne xasan sheekhna kursiga xabad baa looga dhicinayaa caalamka waa yaabeen James Swan iyo teamkiisa war dawlad Soomaaliyeed la aqoonsiyaa wax bad liira ma jirto wax anina waxa la James Swan wuxuu yiri wada ogol iyo wada jir iyo wada fadhi wax la yiraahdo wax ka soo baxa anaga ogolna laakiin in xabad hadda la yiraahdo oo ninka taariikhdiisa dib ugu laabto wax socon kara ma caalamka ka soo diiday haddaan caalamka ka soo diidi lahayn waxa la tagi lahaa Nairobi ama Addis Ababa la fariisan lahaa ama Djibouti هي شركة سامبلية السياسة حمر محل فنيا مدحوينها حكومة دي حمسة غير الله سيادة حمسوها بتاجر مركز شريفي عبد الرحمن عبد الشكور أركبه حمسوها بالجبة وعيد تاجيس كشرع بدبادة غير الأود أي كوسا ميستان ملها وقضب عيدا نما كاس ده بس صعده مجرو وأود له مجرو هوية بدبادة غير هوية قبل أو تهوية كنا ما تاه هوية ده حديثة بدبادة غير إسكو سماه سكرنا متجرو عد أود كله إنه يكون في كلتنا متجرتو أنا هل من واقع يعني إنه الدولة حسن الشيخ محمود كات كانكر هذه سياسة دي ماده نكاس مدير الجليو جبهة مدير الجليو نكاس مدير الجليو إن قرر لقاته أو حمر جبته مدير الجليو نكاس وحسن على غيره وهلك السياسي قال مسلم دارو يهوي دقل يمرفل فهم كلام لكن أدرك الشريف هو الله جوالي بين بالله شيء أنا والله الشريف هو كان من بداية كوتا بدو ناه شريف لبمت وكلت الله عاوي إيش شجرة طل هدي لي على شجرة لبمت وندقي صدونا أرتب دحوين الصومالي صمرات هاي أنا أدرك كانت هاي نين صومالي جعلينا تهاي نين نصيب سياسة دولة متي هذا هاي لو دينك كله ماي هاي لو دينك واتنا تاو مرة بمدحوين صون قطع لكن سياسة دان معلم دكس معها إن أديرو سياسة مهيسد حبضنا عيد كوريدي بكرتب إن إذا صوماليين أو مالين جولستي هذا أهم بليان أمد الصومالية وكوكته فلسفة شيخ شريف وكوشة غيره وحكي لماها والله وحكي لماها مرقاتنا إلهي نوكي أديك الوقتين إذا كقرن كواد دمي إذا كقرن كواد جمي إذا كقرن كواهلك سمي هايس وحلاقي يا بعد إذا كقرن كسيدمال إن تقال قران كنت نقول هذا مت بقول هذا مت توتابع وحرتين إني دل كود الدفاع لأنه خوارج سكتيان شريف بقولك هاي أوينس وكنت جناية والله الجبي السياسة اللي غير هذينا والله الجبي إذا كواد جبين حرب عاد واجبتي البوليس كواد جبي
nabad sugiddu waa jabtay siyaasadda laga raadinayo war ilma adeerayaalo ilaah baa idin siyaasaddaas noocee waaye waa siyaasad imaaraad ka dambeeyo imaaraad oo diidan macnaha maxaa turki shidaal u qodayaa ummaddan soomaaliya waxay u dhisan tahay imaaraad farmaajona ma rabaan shariifna ma rabaan xasanna ma rabaan soomaaliyana ma rabaan waa ganacsato waxayna adeegsanayaan waa kuwa saaxiibadayna waa mucaaradka waay aniga ma qiri karo ma hubo cilaaqaadka xasan cali kheyre iyo imaaraad ka dhexeeya ma hubo waxaa hubaa imaaraad inta ka soo hartoo dhan inay imaaraad biilo waa hubaa aniga xataa kuwa dowladda nagula jiro yaa oo qayb madax ah ee imaaraad u diiwaan gashan imaaraad maxaa ka go-an soomaaliya inaysan weligeed lagu qaadin mucaaradka marka okay haddii xataa beri shir soo saara hadda shir baa u socda war saxaafadeedkooda wuxuu noqon doonaa bal maanta amaan sii oga dowladda waa duntay kow doorasho qof iyo codar lama qaban karo waa waxa fiiri annaga soomaali shacab muwaadiniin soomaali markaana inta dan noo ah waa aniga xasan sheekh dan noo ma ah dowladnimaa dan noo ah xamse dan noo ma ah dowladnimaa dan noo ah war saxaafadeedkooda ay soo saari doonaan haddaa idiin sii sheegaya adinkana caqli ilaahay waa idin siiya bal miisaama dowladnimo ma jirto iyay dan ugu jirtaa asiga kursigu rabaa dowladnimo ma jirto xasana kursiga fadhiya annaga shacab markaana dan maa nagu jirto haddayse dowladda jirin ma kala dambeyn maa jiri lahayd ma ganacsigan geyiga africa iyo soomaaliya iyo muqdisho ganacsigan bulaalaa jiri lahaa yaa dowladnimo hadday jiran yaa jiro qawaaniid baa jirta waay dastuur la bedeli kara ma jiro shalay mid kasta oo madaxweyne isku sharaxaaya oo taagnaa wuxuu lahaa aniga dastuurka waa bedelaa hadda maxaa waaye xasan muxuu bedelaa nidaam ma jiro dowlad ma jirto haye maxaa kaloo jirin mucaaradow ciidan qalab sida oo soomaaliyeed ma jiraan ha jabaan haye shacabka soomaaliyeed oo mucaarad isbarta mucaarad waa nin haddaa baratid mucaarad hadda waxaa kaaga daran ayagana isku fikrad maaha adduunyada mucaarad waa ka jiraa laakiin mucaarad midaysana jira yaasan isku fikrad ahayn farmaajo ma ogolo meel cabdiraxmaan cabdishakuur yaa joogo ma rabo xasan kheyre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur isma rabaan dakaraa ka taal deni iyo axmed madoobe isma rabaan axmed madoobe iyo deni isma rabaan xasan wuxuu nasiib ku leeyahay mucaarad asi ka aragti duwanba rooblan waa maqlaya rooblaa yimi horta eeraboorka muqdisho idiin sheeg eeraboorka muqdisho wuxuu iska noqday guriga cabdiqaadir boosa protocol lagu soo galaaye wuxuu iska noqdaba meel layska wada fadhiyo iridda hoosteeda aawa nabad sugidda booliiska oo eeraboorka aawa eeraboorka wuxuu noqday meel qashin ah oo dadka dhan layskaga soo dhaweynaya cabdiqaadir boos waa layska soo dhaweynaya rooble hadduu rabo ma rabo ninka la yidhaha shariif ma rabiyo ragaa israbi waa madaxweynaha nasiibtaas uu ku leeyay waxaa intaas dheer marka oo raba inaan qodobka kusoo afjaro deni wuxuu taagayaa mar idage allaha dago mar labaad idage anaa isdage deni wuxuu taagayaa doorashadii hore lacag baa bixiyey qarash baa bixiyey niman baa iga faa'idaystay nimankaan hawiyow see idinku aaminaa waa su-aal ogta hawiyow see idinku aaminaa waa su-aal waa deni waa ka shekisaya deni wuxuu taaganya horta aniga haddaan kuwan ku biiro yaana hogaaminaya shariif maxaa faa'iiday axmed madoobe waa shekisaya ayagana waa isfiirsanayaan deni kaarta wuxuu ciyaarayaa ha soo kala haraan hal nin oo culus marka kala heshiiy dowladda waxay diyaar u taha marka mucaaradku inuu hadli karo dimuqraadiyad haysto aragti leeyahay fikir leeyahay laakiin mid mucaarad ma laga yeelaayo haddaa rabtiin igaar waxeesla waaye dhaha mucaarad waa hubeysanaha dhahaayo dowladdiioo sharciyad u dhiman tahay mucaarad maahane waa fallaago ama jabhad waaye sababtoo noloshanuu la diriirsan yaaba dhalinyaradii soomaaliyada jaamacadaha aadaya ama bajaaj wadaaya ama shaqaabuurka fiican watay ee dalka ku noolaa nin taagan ka hor dowladda la dumyaha waxaa ku hoos duugan ganacsi ma jiro waxbarasho ma jirto caafimaad ma jiro isbitaal ma jiro maxaa ku duminaysaa kursi adi xasan shaqi rabtid waaye bal shariif oo ilaahay marka cabsin war haddii maalin maxaakiin kuu toostay ama aad maalin madaxweyne ku noqoto ciyaar 3 gool ku bilaabatay ama 4 gool adoo leh baa garoonka soo gashay ma jirto
yaan beesada lagaa dhameen oo cambuuli bun lagaaga dhameen ani intaasaan ku leeyahay saaxiibkeena xasan cali kheyr waa salaamayaa aniga ninka keliya ee hawiye u dhashay ee maanta daaroodkana waa falanqeyn doonaa habeene ee xasan hadduu kursigan ka dego qaadan kara xasan cali kheyr waa waxaana ku qiimeeyey wallahi wax kale oo nin mursada ana nin abgaal waa islaa kama shaqeeyo burbur magaalada inuu ka dhaco kama shaqeeyo xasan cali kheyr kama shaqeeyo inuu ciidan dumaan kama shaqeeyo أنا مركز صاحبك شريفة قضب وين كاسواي أساس شركة عودة مرتجلية أساس عاوي إنها إجراء يا صوماليات شريفو مش هيك على بدون تج حداد والله تلاقي قاعد ناس هذا يبقى الخرين وأبو كفر حسيها لفير هذا يبقى إلا يا شريفة كفر حسيها ما هو كفر حسيها ده كيس فيرن ماي هل تأبقى الفيرن ماي وأبقى الفيرن ماي وهوي الفيرن ماي حسنا أمه وعنا أبقى الكلو وشي أبد وشي تمام عشان صباح أصلا كمان أنت الشريف مال سو استاج وقبدي ما أنتوا هو بشايك على الجدود آخر توتا حرنا توتا ما وعلى أنت أمرك بتقول لا بس ما لعنتا قول كيا كم مكان ديجانا كم مكان دت كيس الجورعة شقدي السماء هاي قروا التريبة ولا قولي جي هاللي يمال حسن كرسي قفرت معي هاي يا ما حسب أنا دام بتقول نقط قروا التري أنا ما كان بعشان قيمي وفلنقي وصان إنسان ودقدقي هذا السياسة بس هسوا الوقت أبها أقول دني واي شريفنا وشقاء ولا الكس لودر واي كوان كلام حرت واي لكن دولة الصومالية مرة والكست وحكوا علايا ديمقراطية باجرت الدستور باللي هالدولة باجرت وناك باجرة وعلى الشركة لكن قري ميا قري مايا بس كولاد مايا بدبالة قرن مايا وعصر دريم له هذا سعيد كين ربله وحركة إلهي بس ولكن ربلي بوس تو سياسة دواء أو تاجي هذه حصل شيء فدي كرسي دلك هو الدماء هذه قسمة كين حصل بقول مشرح صو هذه كمان دور الحسن إن قضية وحيريو لانديرية هي لا تسكو هي كرب صو هذه المعادلة أنت كنت تمحي ما أنت بقبل أصو حكم كيس ولي تاجي ما لا الدولة والدمي معارضو أنت والله أنت إسكيلاش أنت مسألة وياي قضب كسو كل هذا وعرب هنا يدي نحق اليوم أنت أنا شيء كذا ما هاد صلاة يسمبلوا الشواع يا الكلاسيك ريال مدريد يجي برشلونة واي والله أنت أنا نقول لك وحارب هنا قبل دي السنة هرت الدولة ده ندوق أمانة يعني qaabka hadda qof iyo cod loo wado iyo baraarujinta bulshada maanta 12 xarun oo cusub oo isdiiwaan gelin ah gobolka Banaadir lagu siiyay dadweynihii waa qulqulayaan jaamacadihii waa laga soo baxayaa qaar kombiyuutarada waa loo geenayaa aniga waxaan ka baqaa gaalada dhaqankeeda ka saamugto gaalo ilaan fiiri mucaarad tabartood maxaa beesha caalamka war mucaarad aysan ka maqneen ceelbuur iyo masaajidka cali gaduud beesha caalamka maqanta ko حسن شغديسة دولة نمديسة هوشيس واوتها حمرنا وجد قف عطس وسعت هالشباب لنا جوهر هلا قبت لي واحد دقموي ولا سوق هو بعيا هذا أما قرعيل هلا قبت هلا قبت لاس أنا هلا قبت باش عالم كنيك أود اللي تعجبتها أنت سأجي شيء باش عالم كمان هذا الشر بجري اللي هي لبعتك مرة عندي شرحها جون ما شان تبقى جون نو يا قياسة ما لما شان لا تك جون حسن وسوير كل جد وسوير حسن كما أها السوير تلاك نجيسو كما بقى بقى إن على ستة مرتين ها محارتين مهلين إذا ما الصومالي وابر برين مليين دستور ذلك الله ما فرق ركيه ولا تجناها مليين أنتم محي شيء ربع عالم كانوا حالات السائل الله شيء كسكر الله هل ذكر أنا وحالي الدولة الصومالية هل دليل بسوها يعني إنما كان شرعي ده هستا دني أحمد مدوبي إن له شيء كوان إسكان نقدان سيد عليرة أما عبد القادر بوس يمعروف حاجة إسكان نقدان عيالك حافظ ده لقيتها قباني هذه الدولة الصومالي مرهشة لبداس أما متكود ويكب جول استقوال هذا كوان أوجد دي معارض كوان بدر هذا داورنا وحلاقي أنا معارض كقار تاجرسية والمعارض كانوا يقولوا ويا شاب كده حلو قلي مع السلامة حزبك عشان شغلكم براية شريف كأوجد هدي مشارب الله صار باص كم الله صمرين نبضوا قادنا هي حكم دلنا حتى هدي اللي سكت ده الدورة شو اللي جايره حبت هي الماء ولا الكيس كمان سكروا
abgaal lama yaqaan ogow shariif haddii mid habar gidir la gaar intuu kaga dhigaa haddii mid xawaad la keen intuu kaga dhigaa mid kastoo marka doorasho qof iyo cod marka waa socotaa shariifna waxaa leeyahay hadda microphone ujeed hal baabuuro magaalada ku haystaa doorasho qof iyo cod ma jirto dastuurka ma jiro ciidanka qalabka waa burbureen intaas aan nimankaas uga baxaa wax kastoo shirkooda kasoo baxa oo saxaafadeedna hal bacaad lagu lisawaa waxaan rabay sheekada xawaadle hal maalina horta si fiican u faahfaahin doonaa xawaadle waxay taagan yihiin bacawgii mahad ahaa minii la keeno aanoo dhaqaalood waxaa lagu falaayo baastowda cana dhalayde yaa aanoo dhaqaalood waxaa lagu falaayo baastowda cana dhalayde haddii sanbalool shixilka laga qaaday taagan yihiin dagaalka waa ka baxeenaa oryaa idinkaga fato war xawaadlow wiilkiina ahe idinka ashte war waxaad difaacanoo siin idinka ma sanbaloolshaa mise masiirka iyo sharafta iyo karaamada xawaadle iyo deegaanadiisa aan difaacanoo siin qodobkaan habeen dambe usoo fariisanaa xawaadle keliya waa dhinaha xawaadle keliya aan kala sheekaysan rabaa dadku wacyigelin u baahan yihin war maxaa iska mar ninkaan maxaa sanbaloolshe ma taliyaha nisa mase taliyaha cali madaxweyne waa horta ya hadduu taliya cali madaxweyne yahay lagama qaadi karo xilka dhaha laakiin taliya ummadda soomaaliyeed waa xilka waa meerto shalamahadaa yimid kii ka horreeyay faad yaasiir u ahaa hadda waxaa jooga ninka la yidhaha sanbaloolshe beri igaar gaal jecelaa loo dhiibaa mid habar gidiraa lagu soo celi karaa mid daaroodaa loo dhiibi karaa mid xilka meerto waa xilka daarood ma laha meeshaana habar qadiijo ma ahan moqokori iyo maxaas ma aha haddii xilka laga qaado ma dhula laga qaata adig umad xawaada saamiya leeyi waa sax wasiiru qaado karaa haddana wuxuu u joogo meesha la yidhaha hiiraan wuxuu u dhaqdhaqahay macnaha qabiilka kici ilan qabiilka ma fahamsana moota siyaasadde qabiilka kici haddii xilka laga qaado kaarka ka marso waayo haddii lacalaba ee dhacda in kaarka laga qaado xilka laga qaado xawaadle kici muxuu ka faa'iida aawo mustaqbalkiisa aawo creditkiisa recordka uu sameeyey aawo siyaasi soomaaliya sidii dalkan anaga saaxiibkii aawo waxaa ka bartay dalkan anaga ma malihin wey wallahi yaa le waxna lena ma naqaan sabab wuxuu yiri adduunyada finland ma tagta haa war adiga inta ka imaantay africa maxaa inta kasoo doontay goormaa laabane sababta intuu maanta maxay tahay ku weydiiyaa muwaadinka yurubiyaanka amerikaanka annaga siyaasigeena xilka soo qabtaa dalka inuu sii jabiin rabo macnaha hadduu dantiisa waay iska dhaaf qabiil xawaadle la kiciyay marka xaaladda mucaaradka caawa waa kuwaas gurigaasay ku jiraan wixii abdeyda kulley anna waa la jiraa wixii abdeydana dabcan habeen dambe insha allah baa idin abdeed gare doonaa waana mahadsantihiin saaxiibayaal guuleysta